murugadii jacaylka waa sheeko xiiso badan taasoo xambaarsan waxyaabo fara badan aan la soo koobi karin qofkii dhageysto oo ka bogta mooye. qaybteedii koowaad ayaan rabaa maanta inaan ka bilaabo YouTube channelkayga Saarax Love. waa qiso xanuun badan weliba si dhab u dhacday 1991 si aad ula socoto sheekadaani iyo sheekooyin fara badan aan soo wado. channelka dii aad ku cusub tahayna subscribe iyo saar gambaraalkana furo. mahadsanid. sheekadan waxay ku bilaabanaysaa meel baadiya ay degan yihiin dad xoolo dhaqata ah, inta badanna geelle iyo ariley ay u badan yihiin. dhulku waa barwaaqo, meel kasta biyaa buuxa, xooluhu waa balli cid kasta way faraxsan tahay, ciyaar iyo dhaanta mooye wax kale lama hayo. wiil lagu magacaabo Maxamed ayaa wuxuu ka yimid magaalada baadiyaha iyuuna soo aaday, weliba waxay qaraabo ahaayeen Axmed. Asli iyo Axmed deegaankooda kalama fogeen, way isku muuqatay inkastoo masaafadu ay aad u kala fog tahay. Axmed iyo reerkoodana asaga ayaa u wiil ahaa, geelana cidda asiga ayaa u raaci jiray. dhanka Aslina aabaheed Cawil iyo hooyadeed Faadimo ayaa deganaa guriga, balse ayadu waxay qaabishineed adi raacitaanka. geel iyo howshiisana walaalaheeda kale iyo aabaheed Cawil ayaa raaci jiray. Maxamed oo haweentiisa dhashay Axmed oo magaalada ka yimidna in badan baadiyaha ayuu joogay. dadkoo dhan way la yaabanaayeen qaabka uu libisan yahay, meesha uu ka yimid iyo waxyaabaha uu ka sheekeynayo. asaga iyo Axmed si fiican iskuma kasi jirin, laakiin markaan waxay bilaabeen inay isbartaan maadaama Maxamed baadiyaha u soo aaday qaab dalxiis ahaan, iskuuladiina ay xiran yihiin. Axmed markasta uu geel raacana wuxuu raadin jiray gabadhii asal ahayd oo aadan ari soo raacday. inkastoo geeli ariga isku meel aysan ku daaqi karin, hase ahaatee asaga markasta wuxuu raadin jiray meeshay joogta asli si uu u sheekeeyo uguna soo dhowaado. Axmed aabihiisa muddo ka hor ayuu dhintay, asaga iyo hooyadiis oo keliya ayaa guriga wada joogo. geel xoogaa ay leeyihiinna asaga ayaa maalin kasta raaco. guriga biyahana asaga ayaa u soo dhaamiyo maadaama uusan jeclayn hooyadiisa waxyaabo fara badan inay qabato. dhanka kale Aslina ari raacitaanka waxaa u sii dheer inay biyaha soo dhaamiso gurigana markasta ay keento. haddii biyihii la waayo ayada ayaa loo wacaa oo la dhaha biyaha maa keentid, waxaa la taagan tahay. ayada calaacalku wuu ka dhammaaday, balse waxaa lagu qasban yahay markasta in biyaha ayada loo diro weliba ay keento maadaama goor firfircoon ay tahay wax kastana qaban karta. baadiyahan waxay isticmaalaan qofka xooggiisa inta badan in ay ka faa'iidaystaan. muddo fara badan markay meesha degnaayeenna reer baadiya waxay caan ku yihiin in ay sii kala guuraan. Asli iyo Axmed reerahoodii way sii kala guureen oo waxay isku sii jirsadeen masaafo intii hore ka sii fog. Axmed markaani haasaawataga uu ku sii dheeraaday maadaama Asli ay ka sii fogaatay. wuxuu ku qasban yahay meel kasta ay degtay inuu ka raadiyo, weliba habeenkii uu guurayo ka soo kiciyo jiifka si uu ugu sheekeeyo. ninkii Maxamed ahaana baadiyihii uu ku soo daalay wuu soo kala bartay, wax kastoo lagu qabtana inuu soo fiirsado ayuu rabay, laakiin ugu dambayntii magaaladiisa ayuu ku soo noqday. dhanka kale Asli hooyadeed waxay aragtaa habeenkasta gabadheeda oo Axmed sii kicinaya, weliba iyadoo dhinaceeda jiifta. mar way faraxdaa oo waxay ogaataa Axmed inuu yahay nin aad u wanaagsan, gabadheedana u qalmo. mar kalena way naxdaa, haddana waxay ogaataa Axmed hooyadiis inay tahay qof aad u dabeecad xun, aan qof la dhaqmi karin. Cawil laf ahaantiisa Asli aabaheed muusan u rabin Axmed inuu gabadhiisa ku darsado maadaama Axmed aabihiis iyo asaga xifaaltan hore uu ka dhexin jiray. meelo badan oo cows iyo biyo lahana ay ku kala guureen. si kastaba ha ahaatee guura iyo habeen dheelmad kadib baadiyihii dagaal ayaa ka dhacay. Asli oo subaxii ari raacday gurigana aan u dhoweyn, aabaheeda Cawilna dhan kale geel u foofiyey. sidoo kale Axmedna geerkiisa dhinac kale u raacay, asaga xitaa hooyadiisa meelba aan ku sheegin. baadiyihii oo dhan xabad iyo olol madaafiic ayaa isqabsatay, yaa is soo weeraray lama garanayo, mahawi iyo daaroodkiiba. dadka baadiyaha joogay in badan raadii maysan haysanin, wax war u soo gudbiyey telefoonna ma aysan jirin. magaaladii mar hore ayaa lagu kala baxay. Maxamed Siyaad Barre gooni u carar UAC iyo faqash iyo waxyaabo aan loo joogin
ayaa magaaladii ku soo haray laakiin baadiyihii warka maysan haynin dagaalkii unbaa ka kor dhacay axmed iyo asli ninba dhan oo carar odacawil iyo geeliisina ninba dhan oo carar wax war isku haya ma lahan guri looma soo noqon karo cid kasta ay way guurtay xoolo warkooda naftii ayaa meel loo waayay qaybteena koowaad intaas ayaan ku soo gabagabeynaa la soco qaybaha xiga oo weliba aad u xiiso badan